السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وناكسن ميل كستو aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkii taxanaha barashada daawooyinka qaybtii 15aad. qaybtan waxaan kusoo qaadan doonaa daawada loo yaqaano Cefixime. daawadan waxay ka mid tahay daawooyinka la isku dhaho antibiotics ama si qalajiyaasha. daawadan brand name-keeda ama magaca shirkadda ay kusoo saartay waxaa la dhahaa Suprax, chemical name-keedana waxaa loo yaqaanaa Cefixime. daawadan waxay ku timaadaa kaniini, sharoobo iyo weliba irbad intaba. indication daawadan xanuunada loo isticmaali karo waxaa kamid ah sida caabuqyada kala duwan ee jirka qaybihiisa kala duwan ku dhaca, sida caabuqa loo yaqaano otitis media ee ku dhaca dhagaha, caabuqa ku dhaca cunaha, caabuqa loo yaqaano pneumonia ama si ooforeenka ee ku dhaca sanbabka, caabuqa ku dhaca kaadi mareenka ama se waxa loo yaqaano urinary tract infection, iyo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa xanuunka jabtada ama se gonoryaha oo kamid ah xanuunada lagu kala qaado galmada. side effect daawo kasta waxay leedahay waxa loo yaqaano side effect oo micnaheedu tahay qofka marka uu daawada qaato saacadaha ugu horeeya waxaa jira calaamado isku arko, walow dadka qayb ay isku arkaan dadka qaybna aysan isku arkin. dadka qaybta isku arka calaamadahaasi ma ahan calaamado markaasi qofka waqti dheer haynaya ama si calaamado qofka si joogta u haynaya ee kaliya waa calaamado saacadahaas ugu horeeya oo qofka uu daawada qaatay uu isku arko, kadibna laga yaabaa in markaasi saacado kadib ay calaamadahaas iyaga iskood iskaga tagaan. haddaba daawadan Cefixime waxaa jira qofka calaamado isku arki karo ama se waxa loo yaqaano common side effect. calaamadahaas waxaa kamid ah dadka qaarkood ay isku arki karaan waxa loo yaqaano nausea ama se lablabo, joint pain ama se qofka inuu isku arko xanuun xagga kala goosyada ah, sidoo kale dadka qayb inay isku arkaan itching ama se cuncun. dhammaan calaamadahani qofku wuxuu isku arki karaa saacadaha ugu horeeya marka uu daawada qaato, mana ahan calaamado sii jiraya, waa wax saacado koobana kadibna iyaga iskood iskaga tagayaan. qaabka ay daawadan u shaqeyso daawadan waxay ka hortagtaa unugyada bakteeriyada ama se jeermiska soo saaray kadibna usii gudbinaya jirka qaybihiisa kala duwan. dosage qiyaasta daawadan la qaadan karo daawadan waxaa la qaadan karaa miligaraamyada kala ah 100 miligram, 200 miligram ilaa 400 miligram 2 jeer maalintii. haddaba qaadashada qiyaasta daawadan ama se qiyaasta la qaadan kara daawadan hadba waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisa iyo weliba da'diisa. daawadan waxaa la qaataa badanaa cuntada kadib ama se qofka marka uu cunteeyo kadib ayaa haboon inuu qaato. storage keydinta daawada daawo walba waxay leedahay qaab loo keydiyo. haddaba daawadan waxaa haboon in lagu keydiyo meel heerkulkeedu u dhexeeyo 25 digrii ilaa 30 digrii. prolong use ama se daawada isticmaalkeeda oo la dheereeyo weliba waqtigii aan loogu talagelin inuu qofku daawadii uu sii wado ama sii isticmaalo. haddaba sidaa wada ognahay daawo kasta waxay leedahay waqti gooniya ama se waqti cayiman oo loogu talagalay in muddadaasi qofka uu daawada ku qaato. tusaale ahaan dhakhtarka hadduu ku yidhaahdo daawadan waxaa ku isticmaashaa 2 asbuuc, waa inaadan ka badin isticmaalkeeda 2 asbuuc, sababtoo ah daawo kasta haddii markaasi la isticmaalo intii loogu talagalay inaan ahayn markaasi waxaa ka dhalan karta dhibaato caafimaad. sidaa darteed waa muhiim waqtigaas dhakhtarku uu kuu xadiday ama se muddadaasi kooban ee dhakhtarku uu kuu xadiday inaadan ka badan isticmaalkeeda. haddaba daawadani waxaa jira waxa loo yaqaano drug interaction ama se daawooyinka guud ahaanba waxaa jira daawooyin aan lisla qaadan karin oo ama se aan isla shaqeyn karin. haddaba daawadan Cefixime qofku haddii uu isticmaalayo daawada loo yaqaano heparin ma mudno inuu markaasi isla qaato ama se isla isticmaalo. sidaa daraadeed qof kasta oo isticmaalaya daawadan Cefixime waa inuusan la isticmaalin ama se la qaadan daawada loo yaqaano heparin ilaa inuu dhakhtarka markaasi usoo qoray daawada uu la tashto oo markaasi uu ku warceliyo mooye. sidoo kale waxaa jira wax loo yaqaano disease interaction. qofka markii daawo loo soo qoro waxaa jira xanuuno iyo daawooyin aan isqaadan karin. sidaa darteed waa muhiim dhakhtarka markuu daawadan oo kale uu kuu soo qoro inaad u sheegtid haddii aad xanuuno horey u qabtay sida sonkor, dhiikar oo kale, xanuunka macaanka ama se waxa loo yaqaan diabetes mellitus-ka. sidoo kale qofka hadduu qabo kaliya xanuunka, dhammaan haddii ay jiraan xanuuno aad qabtid waa inaad dhakhtarka markaasi aad u sheegtaa si dhakhtarka uu
eego in daawadan iyo xanuunada aad qabtid aysan wax dhibaato aadan kala kulmi doonin. Sida aan wada ognahay daawo kasta waxay leedahay xanuuno loogu talagalay in loo qaato iyo xanuuno aan loogu talagalin in loo qaato. Haddaba xanuunada loogu talagalay daawadan Cefixime waa soo sheegnay oo waxaa kamid ah caabuqa ku dhaca dhagaha ee loo yaqaano otitis mediaha, caabuqa ku dhaca cunaha, caabuqa ku dhaca sanbabka ee loo yaqaano pneumonia oo wareenka, caabuqa ku dhaca kaadi mareenka ee loo yaqaano urinary tract infection, iyo waliba sidoo kale xanuunka la dhaho jabtada ama gonorrhea ee lagu kala qaado ee kamid ah xanuunada markaas lagu kala qaado galmada. Haddaba xanuunadaasi waa xanuunada markaa daawadan loo qaadan karo. Waxaa jira xaalado ama xanuuno markaasi loo qaadan karin oo daawooyinka dhan ay leeyihiin markaasi waxyaabo loo isticmaalo iyo waxyaabo aan loo isticmaalin. Haddaba daawadan Cefixime qofka haddii uu qabo allergy ama xasaasiyad guud ahaanba daawadan ma qaadan karo ilaa inuu markaasi dhakhtarka uu la tashto mooye. Sidoo kale daawadani hooyada uurka leh ma qaadan karto ilaa dhakhtarka inuu amar dambe ay la tashato oo markaasi daawadan ay kala tashto inay qaadan karto in kale mooye amase inuu u bedelo mooye. Haddaba daawadani dadka ka weyn 60 sano jir daawadani ma qaadan karaan amase iskama qaadan karaan ilaa dhakhtarka inuu usoo qoro amase dhakhtarka inuu markaasi u xadido mooye. Dhammaan waa waxyaabo precaution amase waxyaabo ay mudan tahay in laga taxadaro oo daawadani ay sameeyeen in iska siiyo. qaybtii 15aad ee barnaamijkii taxanaha barashada daawooyinka waa naga intaas. haddii aad ka faa'iiday la wadaag asxaabta, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad horey noola joogteen like tan nagu dhiirigeliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.